بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. مركب الله سبحانه وتعالى يا مهدله nagu guuleeyay howlgallo ballaaran ee asbuucan ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. howlgallada ugu dambeeyay waxay ka dhaceen khawaarijta al-Habaab isku dayeen inay soo weeraraan degmada Oodheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaa ka hortagay guutooyinka Gorgor iyo Oktoobar oo isgarabsanayo waxayna gaarsiin khawaarijta al-Habaab jab weyn. waxaan halkaas dhooban baqtigooda ay halkaas dhooban shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Oodheeglena waxay ku indhadogsanayaan baqtiga khawaarijta al-Habaab. sidaas oo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa Sumadaale waxay si isdaba joog ah ugu khaarijeen koox ka tirsan khawaarijta al-Habaab iyo naarta. sidaas oo kale waxaana ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay duqeymo barakeysan waxaana lagu halaagay koox ka tirsan khawaarijta al-Habaab. sidaas oo kale deegaanka lagu magacaabo Boos Hareeri waxaa lagu duqeeyay khawaarijta al-Habaab waxaana lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta al-Habaab kilaab ahli naar. sidaas oo kale maalmihii ugu dambeeyay waxaa dhacay duqeymo kale oo ka dhacay doonka Shabeelow oo lagu burburiyay buundadii macmalka ay sameysteen kooxda waxaana lagu burburiyay gaadiid ay wateen kooxda oo isugu jiray suugag iyo teedhisabano. sidaas oo kale waxaa la burburiyay buundadii isaga gudbi jireen kooxaha khawaarijta al-Habaab oo isugu jiro isaga kala gudbi jireen gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Shabeellada Hoose iyo Geerille oo ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay sameeyeen guutada Gorgor iyo guutada la yiraahdo 77 oo iska kaashanayaan la dagaalanka khawaarijta al-Habaab ayagana waa ku guuleysteen. sidaas oo kale dadka deegaanka ayaa waxay weerareen degmada Ceelbuur oo ah xarun weyn oo khawaarijtu ku hareeraysan tahay. bacdama ay dadka deegaanka weerareen waxay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-Habaab. sidaas oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururada 144 iyo 145 ee ka tirsan guutada Oktoobar ayaa waxay sameeyeen burburin ku sameeyeen degmada Marko iyo Janaale nawaaxigeed ilaa Shalambood waxayna kula dagaalameen koox ka tirsan khawaarijta al-Habaab waxayna ka soo hooyeen guulo waaweyn. maalmihii ugu dambeeyay sidaas oo kale waxaa dhacay howlgal burburin ah oo lagu bartilmaameystay fadhi ay ku lahaayeen khawaarijta al-Habaab deegaanka lagu magacaabo Laba Garas ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana lagu dilay koox ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta al-Habaab. guud ahaan waxaa asbuucii ugu dambeeyay ka dhacay howlgalladii ugu dambeeyay gobolka Galgaduud oo laba meel ah Shabeellada Dhexe oo dhowr aag ah iyo Shabeellada Hoose oo ayadana dhowr aag ah waxaana lagu burburiyay khawaarijta al-Habaab. marka koobaad waxaan rabaa inaan Ilaahay uga mahadiyo guulaha waaweyn ee ciidamadeena gaarayaan. marka labaadna aan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iska ku garab taagan ciidamada qaranka inay la dagaalamaan kooxda khawaarijta al-Habaab. marka saddexaad waxaan rabaa inaan ciidamada geesiyaasha ah libaaxyada ah oo dhiigooda huraayo inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed inaan iraado waa maasantiin man laa yashkurina la yashkurullah. Allahu akbar walillahi alhamdu. guusha annaga iskale guul daradan khawaarijta ayaa leh shacabka Soomaaliyeed ciidamadana way guulisanayaan. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.